wasiirka arrimaha dibadda wasiir dowlaha xanaanada xoolaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha gudoomiyaha bangiga IBS agaasimaha barnaamijkan diaspora gudoomiyaasha kala duwan ee ka soo qayb gala xafladan quruxda badan ee gabdhihii wiilal isugu jira iyo diaspora dhamaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. سلام كبعد وحن رأى مركو هرئيس إن سود ويا أنا مهد عليه ولا له سود دياري سومالي دياسبرا إنفستمنت فورم أو قريب كأها صاحب كان عبد الرزاق علي ورسام أو ها معكم رمال قليا أنت إسكو هوشة أو برامج كان روح بام سود ديار سبب وحن لنا يوزار دين أريمة دبده بسود هذا أول ما حسنتين برامج كان ضدكو إنه مركز قارس برتان أو سان حفلة السوقي ماذا هذا في عنتها وأنا سود ويننا وزير كنا أو رنتي daljoog ah oo maxaanku wasiirka arrimaha dibadda oo runtii nin ganacsadana aad ugu furan dalkana aad ugu warqaba ah oo barnaamijkan asoo cusub bilaabana waxaan leenahay wasiir soo dhawow arintaana hore socod badan ay naga rabi doontaa insha Allah hadii la yiraahdo intaas markaan furfurasho ka dhigo waxaan rabaa inaan marka horeysa aan taabto markii laga soo bilaabo 60meeyadii ilaa 90meeyadii dhaqaalaha dalkeen wuxuu ku dhisnaan jiray beeraha xoolaha warshadaha iyo kalluumaysiga ku dhisnaa laakiin markii 90kii ay burburtay dawladeennii waxaa loo baahday marka dhaqaalihii dalka iyo lacag shilin Soomaaliga waa isla dumeen ganacsiga Soomaaliyeed waxa markiiba la bilaabay oo si ganacsi oo burbur amal ah xoolaha Soomaaliya inta la dhoofiyo in badeeco lagu soo bedelo intay 2 sano inta socotay waxa noo bilowday diaspora nacfigeeda soo bilowday alxamdulillah xawaaladaha Soomaaliya iyo diaspora oo dhaqaale xaq ka keenaysa iyo xawaaladaha soo min guurinayay iyo ganacsatada import oo ku soo adeegaysa lacagtaas waxa moodaa inay wax badan dalka ka qabteen oo runtii aan ganacsatada Soomaaliya abaal uga hayso lacagta diasporada ka timaada oo hadii aan la heli lahayn dalkaani wax badan laga dareemi lahaa dhibaatada ka imaan lahayd shilin Soomaaliga meesha uu naga maray iyo dhaqaale xumada jirta waxa lagu badbaaday diaspora oo lacagta ay ka keenaysa xawaaladaha oo sida hadda la sheegay hooyada ganacsiga Soomaaliya xawaaladaha yihiin importigan waxaan ugu mahad celinaynaa in lacagtaasi ay ugu adeegeen oo dalkii marka badeecadii loo baahnaa ay keeneen muddo ka bacdi waa soo soconay 2011 waxaan xasuustaa markii u horeysay anagoo ganacsateen xoogaa qaab dhismeed iyo maamul aan yeelanay gabar diaspora oo la yiraahdo Saacadiyo Soos xamar noogu timid oo runtii markaas rabtay barnaamij ay iyadu ku guuleystay oo Minnesota iyo Mareykan ay ka bilowday inay maalgelin u raadinayso oo rabtay in ganacsatada Soomaaliyeed in sooskaas lala maalgeliyo oo markaas waxaan ugu qabanay shir hotel Dayax meeshaasaan marka barnaamijkaas aan iskala talaabo qaaday kadib jamhuriyadda kumarsiga Soomaaliyeed wuxuu bilaabay every 6 bilood kasta in aan diasporada aan shir u qabano anagoo marka ujeedooyin fog kale marka July oo kale iyo December oo kale la qaban jiray shirkaas waxaana barnaamijkaas aabo oo ahaan jiray nin la yiraahdo Cabdi Abshir Dhoore oo asaga laftigiisa markii hore diaspora ka soo jeeday laakiin anaga ganacsateen waxaan dhahnaa qofku hadii 5 sano oo dalka ku noolaado wuxuu noqdaa diasporada ka saarnaa wuxuu noqdaa local oo noqdaa qofku markaas marka waxaan leenahay marka barnaamijkaas waxaan bilawnay in aan la kulano marka diasporada every 6 months anagoo marka ka raadinayna inay soo min guuriyaan aqoontoodii iyo xirfadii ay ka shaqeyn jireen iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo rabo markaas inay u maalgeliso waxa ay la yimaadaan waxa u horeeyo xasuustaa nin la dhihi jiray Xasan Cali oo Holland ka shaqeyn jiray warshad caanaha powderka ah Xasan Jaaxa la dhihi jiray wuxuu noo keenay barnaamij oo caanaha powderka ah in waxa la iyo qasaca waaweyn ku jira iyo ayagoo waxaan ku caanaha koste iyo niida iyo oo qasaci waaweyn ku jirta dalkan lagu iimi jiro $10 ah dadku ma kari karin Xasan Jaaxa wuxuu keenay fikir ah inuu sidii oomado kale taxta oo ka sameeyo 25 gram iyo 50 gram inuu ka dhigo barnaamijkaas oo saas caani powderka ah lagu warshaday oo Dubai oo warshad uga sameeyay lacag $2 milyan ah oo u baahday ganacsatada Soomaalida maal gelisay warshadaas waxay noqotay markii dambe wadan kasta oo burbura sida South Sudan iyo Libya iyo Suuriya iyo wadan kasta wuxuu qaadan jiray caanahaas ee ninka Soomaaliga oo alifay oo Dubai lagu sameeyay runtii warshadaas hadda wali ilaa hadda Dubai ku taala hadda waxaan u maleeyaa 2 milyan lagu bilaabay 60 milyan ay ka badan tahay investmentiga iyo lacagta hadda ku jirta ee laga shaqeeyo meeshaas waxyaalaha kale oo la iska kaashado waxa kamid ah ganacsateen oo fikradaas ka dhalatay qaybtan financialka oo waliba qaybta ugu qaalisan oo insurance-ka takaaful rag dhalinyaro Ingiriiska yimid noola yimid barnaamijkaas takaaful insurance-ka ah iyagana markay soo bandhigeen ay ganacsatada Soomaaliyeed soo bandhigeen waa ay sharaxeen markay sharaxaan
kabacdi haddana in koobanoo markaa danaynaysaa la gooni noqonaysa kadib markaa mar saddexaad waxay noqonaya intii danaynaysa inay isla falgalaan insuranska takaafulkaasna waa ka bilowday dalka ayadoo ganacsi Soomaaliya iyo diaspora ay isla waana u shaqeeyaa hadda waxaa kaloo kamid ah waxyaalaha loo keenay oo nin dhalinyaro isagana Ingiriis ka yimid oo ka shaqeynayay madbacadaha oo madbacadan hadda la dhaho some printing oo isagana saasoo kale la yimid ideyadoo keenay iyo shirkadoo ka shaqeyn jiray ganacsato u soo bandhiga marka u soo bandhigo maalgelinta u baahan yahay soo sheega markii la fiiriyo oo la daraasaday oo la arko dhinaca oo waxa aad ay ganacsatadu ay u ilaalisaa dhinaca managementiga oo dhaqaalaha inay gacanta ku hayaan dadka investorka ah asagana oo xirfad lahaado si aan labadiiba la isugu darin barnaamijkaas inta badan diasporadu waa naga yeelaan marka ninkii maalgeliyo oo dhaqaalaha gacanta ku haya kana xirfada haya waxay noqotay madbacada u horeyso marka aan bilawnay some printing iyadana saasoo kale noqotay aadeen u hirgashay waana fiican tahay maasha Allah meel fiican ay maraysaa waxaa kamid ah waxyaalaha la iskala shaqeeyay ee warshad oo hadda waxaa jirta aan gacanta ku hayno oo cambaha Ethiopia oo kale hadda ay qolo Swedish oo dhalinyaro ah ay ayadana saasoo kale ay diaspora ay dhex keeneen ganacsatada Soomaaliyeed oo hadda processkeeda oo socdo oo Turkiga hadda warshadii dalabkeeda iyo sameyskeeda oo socdo oo rajeynayno inay mar dhow inay howl gasho warshadaas oo ayadana cambaha Soomaaliyeed tuujin doonta oo mango kala soo saari doonta waxaa kaloo jirta dhalinyaro ka yimid ayaguna meesha Australia oo dhinaca markaas ka shaqeyn jiray calafka xoolaha iyo waxyaalahaas oo kale cawska ayaguna waxay soo minguuriyeen sidii beero loo sameyn lahaa oo cawsi calaf oo kala ayagana waa la maalgeliyay hadda meeshan waxay ku tahay dhinaca afgooye caws qurux badan oo aad u yaab leh sameeyeen cawskaas hadda waxa la bilaabay in dibadda loo dhoofiyo oo cawska inta la dhoofiyo alfa oo runtii ku fiican in maartay maxaan ku yiraahdaa ay daaqaan xoolaheena ama marka la dhoofinayo la siiyo ama maxjaradeena ay isticmaalaan waxaa moodaa marka iskaashigaasi wax badan oo noo tara waxaa kaloo jira oo anaga laftigeena aan booqanay Sweden warshad waxaa ku taalay oo digaaga qasha oo nin Soomaaliya oo German ka yahay oo runtii maalintii 170,000 oo neef oo digaaga ay process garanaysa ninkaas anaga waxaan ka dalbanay inuu aqoontaas iyo barnaamijkaas oo maamula inuu Soomaaliya keeno anagana aan maalgelino si oo xataa dhinaca xoolihii mararka qaar aan digaagan cad iyo kalluunka loo aado dhinaciisaas waa naga aqbal waa yimid ayada laftigeeda processkaas waa socdaa marka diaspora waxaan idin sheegaa waa mararka qaarkood idinkuna dhinacaad ka qabweyntiin anaguna dhinacaan ka qabweynahay laakiin waa isu baahannahay waana la rabaa in aqoontiina iyo xirfadiina inaad soo minguurisaan oo barnaamijyada franchise-ka ay ka shaqeyn jirteen inaad dalka dib u keentaan anaga ganacsada Soomaaliyeed waxay ballan qaadaysaa inay maalgeliso hadday noqon lahayd bangiyada iyo hadday noqon lahayd ganacsatada caadiga xirfadleyda ee ka shaqeysta import and export ee mararka qaar u baahan inay serviceyada qayb ka noqdaan marka waxaan isleeyahay wax badan noo hagaagi doona waxaan rabaa ugu dambeyntii aan soo koobay barnaamijka inaan ku soo gabagabeeyo diaspora markii u horeysay dadkii dalka ka tagay dhaqankeena yaqaana noo jiray markii labaad ilmihii ay dhaleen oo ku dhawaa oo marka dhaqanka aabayaasha haysta aan noo jiray marka saddexaad waxaan cabsi ka qabnaa dhalinyarada jiilka saddexaad oo wax loo yahay inay magaca diaspora inta iloobaan ay iska noqdaan muwaadin dalkaas ah arintaas marka si ganacsigan uga gaashaamato waxaan dib u bilownay real estate aad u qurux badan oo dalkan laga bilaabay oo loogu talagalay dadkeena Soomaali ee diasporada inay markaan dib u soo celiyaan dhalinyaradeenii iyo dadkeena si aysan xagga nooga dhalan rogmin oo aynay dal leeyihiin inay dad leeyihiin ay ogaadaan ay nala qaybsaan ay dib ugu soo noqdaan guryahan quruxda badan leh ee maamul goboleedyada meel kasta haday noqon lahayd Boosaaso Jubbaland iyo Galmudug iyo Muqdisho laga wada bilaabay Hirshabelle waxaan leenahay dhalinyarada hana loo soo celiyo si dalka loo keeno marna u noqdaan oo vacation u noqdaan sababtoo dalkeenu bad qurux badan oo leeyahay waan isla qaybsan karnaa waxaan kaloo rabnaa oo mudan wasiir aanu barnaamijkan ka faa'iideysanaya 30 sano kasta dhaqaalaha adduunka waa isbedelaa haddaan 30kii hore beeriyo xoolo aan ahayn 30kii dambena diaspora xanaan xoolo aan isla ahayn xawaalada iyo import aan isla ahayn 30kii dambe haddana waxaan u noqonaynaa inaan beerihii iyo xoolihii kalluumaysigii inaan dib u soo celino marka dalkeen iyo shidaalaba noo yimide inaan markaan alxamdulillah dalkan in hindi ka shaqayn doontaan rajeynayna markaan waxaan noqonaynaa dad loo shaqayn doono oo heli doona dad maaragtay maxaan ku raad hindi iyo dadka iyo Switzerland dhine Malaysia dad badan noo shaqayn doona imaan doona insha Allah diin waxaan higsanaynaa wadamada dhaqaalahooda aad u horumar oo maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum salaam waraxmatullaahi